maanta waxaan ka hadlaynaa hooyooyinka single motherka carruurta ka halowda gabadha habeenkii baxaysa kalaab aadaysa under age-ka wiilkeer isagoo yar noqday nin rag ah kuwa yar oo waxaa jira bastoolada wataan 8 jir bastoolada wata wax dhacay maarka Soomaaliya laga arkaa 10 jir bastoolada wata wax dhacay kan yarka hadda dhowr gaari buu dhacay 12 gaari ay sheegayaan dadku dhacaa ka daran dukaamada madax isugu tuuraya isagoo bastoolada wata bahal bastoolada wata dukaamada waa galaya wajigu ka saaraya dadka bastoolada lama dili karo waa 11 years iigu buu ku leeyahay qariirad buu wataa hadduu wiilkaada halaabo oo daroogo ku aragtid ama aad ku aragtid misbehavior gabadhaada oo under age haddaa aragtid iyadoo deedgaraynaysa oo baxaysa Department of Children baa jirta qayb waxaa jirta u qaabilsan carruurta kuwaasaad report siinaysa atrishada yartaa kalaamidii aadaabaad leedahay waa faham weeye wiilka hadduu halaabo waad u sheegaysa non-emergency police call number baa jira non-emergency police call number baa jira oo hataa ninkaada iyo waxyaalihii aan emergency ahayn 911 emergency way 911 looguma talagelin ninku dharbaaxay iyo carruur halowda iyo looguma talagelin 911 waxaa loogu talagelay emergency aad u adag qof dhimanayo oo kale loogu talagalay soo waxaa jira police number kale oo la dhaho non-emergency phone number non-emergency gaasa waxaysaa hal askariyo keligii socdaa ku imaanaya sometime privacy gu fiirinaya adiga ciyaalka inaad isku xumaataan ma rabo because ciyaalka dad booliis ugu yeerto ku xolaysanayaan lama rabo in ciyaalka ogaadaan inaad dacwaysi you have to know this my friend carruurtaada laguma beerayo cuqdad laguma beerayo carruurta lama ogeysiinayo inay hooyada dacwaysa ama aabaha dacweeyay no this is privacy waa extremely privacy way for the kids ayna ogaanaynin non-emergency police number baad wacaysaa xilli ay maqan yihiin ama meel kale aad booliiska isku ballaminaysaan reportkaad siinaysa meelahan saad ogtihiinba police station lama tago police station intaad tagtid aad report geenaysid mar waa lagu soo xayiranaya albaabku waa xiran booliiska albaabku waa xiran yahay microphone baa bannaan ku yaal what's your problem aa lagu leeyahay I need police call 911 ay ku dhahayo no straight contact to police major police station inta tagtay report geenaysa male saan ani oga albaabka iga soo celiyay inta tagay dhan bax my friend ana inta police ka tagay dhan 911 police inta jid ku istaajiyo 911 marka everything should be recorded 911 police can and hadayna emergency khatara ay ahayn oo jidka aad ka leexisid hadhow isaga dambiila shaqo aan loo dirin oo shaqadiisa ahayn buu galay anything happens asaga la qabsanay 911 kamuga corruption ay noqonayso marka everything waa inuu soo mara 911 oo la register gareeyay sida Africa oo kale ayna u noqonin booliiska adaa soo wadanaysid ii qabaad leedahay ninkan ee xirbaxaas la diidaya ma faham hebelo ha ii imo booliis ba ordaya ku imaanay ii qaba ninkan ee xir neef araymiya waxaas lama ogolo meeshan everything happens through 911 to avoid corruption marka Department of Children baa jira police non-emergency baa jira oo ku imaanaya oo kala tashanaysid carruurta guriga ugu imaanayaan meelahaas ay ka raadsanayaan gabadha iskuulka iyo meelahaas ay ka raadsanayaan waan u sheegay hadda kadib reportyada aanu helnay oo ku daba socnaa alalay dad si fiican u behave gareyn weey warning ala siinaya cunugii waxa arkaysa ayrko you know mar horena waa idin sheegay carruurtaada intayna ku dacweeyeen dacwee report ka wada dhig ku allaale kii xun report ka dhig hadhow hadduu dambi sameeyo ama dad dilo ama daroogo lagu soo qabto asagoo under age adiga shaqa ku mari booliiskaad u sheegaysaa booliiska carruurtayda aniga booliiskaan u sheegay inay nabadgelyadooda sugaan booliiskii iyo carruurtayda wax ka qaban wayaad leedahay booliiska waa suu garanaysaa dawladda yes laakiin haddaadan reportkaas geynin oo cunuga uu sameeyo dambiye khatar ah my friend adaa u maqan under age hadduu dad dilo adaa u maqan adaa lagu xirayo hooyadii aabbaha waa la xirayaaba child neglect ay ku jirtaa cunugan waa dayacdeen si fiican umaydan tarbiyaynin dhaqan xumadana adinku idinka keenay it applies the same aabbaha iyo hooyada hadday dayn qaataan oo dhahan jaamacad baan ku dhiganaynaa iskuul faafantina malaynay dayn ay qaateen dayn iskuul ay qaateen dayntii la goodo way bixin waayeen
cunugaada iskuul ma helayo cunugaada laga jaraya dhibaatadii aad geysatay oo iskuulka aad u goysay oo lacagtiisana aad bixin weyday ilmahaaga oo dhan iskuul ma helayaan ya ma helayaan lacagta iskuulka basar lacagta iskuulka oo dawladda ay siisay ma helayaan adaa kharibay Soomaalida kullina qof kastaba lacag iskuul u cunay 30 kun 40 kun 50 kun ala cunay 100 kun oo farfarxaya ilmihiisu wuxuu dhigay education laan my friend ilmahaaga jaamacad ma aada you cannot afford jaamacad iska bixin kartid ma ka bixin kartid jaamacad lacagaha iskuulka la qaadanayna hala joojiyo hadaa rabtaa ilmihiina inay wax bartaan oo engineer noqdaan oo doctors noqdaan hadaa rabtaan lacagahan intaad qaadataan aad la goynaysaan joojiyo Soomaalida kulli lacag iskuul la gooyeen lacagahan iskuulka aad la gooysay wiilkaada ka go'an tahay ma gabadhaada jaamacad ma aadayso you have to know my friend this anything oo parentska oo credit oo parentska soo gaartay waxay ku wareegaysaa lacagtaas ilmaha ku wareegaysaa ilmaha leebix meel alaal meeshu tago waxa la aaba blacklist my friend lacag buu dhacay ma bixinaysa it applies the same cunuga oo yar under age 10 jir 12 jir dambi haduu sameeyo hooyadii aabay ka go'an tahay labadaba waa la xirayaa haduu dambi sameeyo because ay akhlaaqdooda sugu weey haday akhlaaqdiisa ay raali ay ku yihiin hadayna akhlaaqdiisa ayna raali ku ahayn booliskii dawladda la wadaagi lahaayeen adigi qof xun baad haysaa oo hooy u noqotay qof xun oo criminal ah hooy u noqotay oo qaranaysa oo khatar ah oo public society ama community meesha degan khatar ku ah yaad qaranaysaa waxa lagu xiraay tan way cunug yar khatar habeenkii dadka soo dhacay oo soo leenayo oo hub wataad qaranaysaa basementiga qoriyiisa ugu qaranaysaa daroogadiisa iyo basementiga ugu qaranaysaa ee ka go'an markaas adaa ha bagareynay adaa cover u noqday adaa shelter u noqday yes gabar yar oo habeenkii intay meelaha odayaasha soo baaranayso oo under age oo suubaysanaysa hadii la qabto hooyadii aabay ka go'an meesha sharciga jira cunuga sharci buu leeyahay waalidkuna sharci buu leeyahay ala lama hadli kara carruurta ma jirto booliska u sheegaysa waa waxaysa ilmaha waxa la diiday inaad tojagraysid waxa la diiday inaad dishid waxa la diiday inaad si xun oo la dhaqantid human right khatar ku ah laakiin ilmihi hadaad fahmi weydid child authorities dadka madaxda ah 911 booliska waxa jira naan emergency number kaad waxaysaa waa la tashanaysaa report ko dhan aad siinaysaa address ka fiirinayaan cunuga magaciisa fiirinayaan hatta inaydan ku imaanin baa laga yaabaa iyaga kor ka raasanaya waa waaninayaan way discipline gareynayaan kalaasi u direen special they support gareynayaan kalaasi special u dirayaan waa waaninayaan waa hor kama qabanayaan waa underage si diblimaasinimada wanaagsan dad expert ah loo dirayaa marka adigana safe baa tahay cunugiina waa safe waxba la barayaa si wanaagsan school special la geynaya kor baa laga la soconaya activitieskiisa ayaga mas'uulka oo la soconaya sheekadiisa guriga markuu imaanay kor ay ka fiirsanayaan markuu ka baxay kor ay ka fiirsanayaan meeluhu aadaya waa la soconaya they save the child and they save you too laakiin hadaa report gareyn weydid adigana tuug ninkii qariyaysa tuug way you have to know this my friend hadaad lacag school qaadatay oo dhacday oo bixin weyday adigana tuug baatay ka dhashayna waa tuug ileen tuugna waa tuug way afmiishaarna waa tuug marka cunugta yar shuubada ah warwareegaysa ee aad kari weyday akhlaaqdeeda booliska ama child department waa waxaysa waa underage waa child wiilka aad kari weyday ee bastoolada iyo balaayo wata ciidan wato oo daroogo wato oo la daba guuray wiilkaaga safgari adoo ismaaciil lagu dilayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliya jidka lagu dilay waad aragteen haddaad booliska u sheegi lahayd oo iskuul fiican la geyn lahaa oo kor laga ilaalin lahaa ninkaas nin wuxuu noqon lahaa hadhow wax bartay engineer hal iska daaya lacagaha iskuulka la qaadanaya carruurtiina dhigaysaan education laan runta idin sheegay waa inaad deysaan lacagaha iskuulka aad qaadanaysaan aad cunaysaan carruurtiina dhigaysaan education laan carruurtaada lama si $100 ma bixin kartid my friend cunugaadi baad blocked maxaan barnay meelahan waxbarashadaas ee high school iyo shaqo lagu ma helo marka professional doctor ama engineer inuu noqdo u baahan yahay ninka inuu jaamacad aado ma aadi karo waa inaad ilaalisaan lacagta iska ilaaliya lacagta iskuulada qaadanaysaa khatar way